الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على نبيه الحبيب محمد بن عبد الله وعلى صحابته الكرام وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. walaalayaal wax yar baynu ka joognaa ayaamo yaroo kooban markay noo soo dhammaatay ramadaan. alla waxaynu baryaynaa inuu inaga aqbalo. khudbadeennani waxay la xidhiidhaa maada bacda ramadaan, maxaa ka dambaynaya ama maxaynu ka dambaysiinaynaa ramadaan baxdaye. dhowr qodob baynu isdul taagi. ta u horeysaa waxa weeye ramadaan waxay ahayd waa madrasa ruuxiya, tababar baynu soo qaadanay xagga ruuxda ah. ciidanka marka la dagaal gelinayo waa tababar la siiyo. dee jihaad baynu ku jirnaa, naftiyo shaydaankaynu la dagaalamaynaa. naftiyo shaydaanka dagaalkooduna waa joogto. sahay baynu markaa soo qaadanay shidaal oo sanadka inta hadhaya. haddaad safar galayso shidaal badanna sidatood biyo sidato, nacasnimaa loo tixgelin karaa qofku inuu shidaalkii iyo biyi bannaanka ku daadiyo oo intuu furo taangiga uu sii daayo. qof waalan baa loo tixgeliyaa. marka inaynu wixii aynu dhisnay camal ahaa macsiyo ka daba keenaynu dumino waa qof safar ku jiro shidaalkii iyo biyi iska daadiyey. taasuu ilaahay inooga digayaa markuu yihi walaa takuunuu kallatii naqadat ghaslaha min bacdi quwa ankaafa. alla mid noqonina ruuxii dumarka hayda xadhigga intay soohdo dib u furfuri jirtay. nooc waaliya wey. waxaynu isu dardaarmaynaa, waynu gafaynaa, waa dhacdhacaynaa, waa ceerceeraynaa inaynu istikfaarta badino. oo qofka muslimkaa mar walu dembaaba farad waxa ku aya waajib inuu ilaahay dembi dhaaf weydiisto subxaana wa tacaala, dariiqa toosanna uu maro. waxaynu ogaanaynaa cibaadadii faralka aydaynu soo gudannay iyo cibaadooyinkii sunnaha ee la socday mid walba badiil baa jira, shayba halkiisii gelaya. soomkii sunnaha ahaa wuu socdaa isagoo noocyo kala duwanoo shawaal usoo horeeya. salaatuleylkii sideedii bay u socotaa, waaba salaada u fadli badan buu nebigu yihi salaatuleylku faralka kadib. isagoo faralka la gaabiyo safar nebigu ku jiro wuu la iman jiray salaatuleylka. salaadihii sunnaha oo kale lama imanayni marka subaxa laga tago. waxaynu xambaaraynaa hamiga ah ma laynaga aqbalay camalkii. isqancin mayno, umana han weynin camalkeenna, laakiin waa ka warwarsanoo waxaynu leenahay talow ilaahay ma idinka aqbalay. waxaynu baryaynaana markaa inuu ilaahay naga aqbalo. waa hamiga kale aynu xambaarsanay. waxaa intaasii raaca inaynu is-shaybaadh isku samaynayno, bal hadda dhaqdhaqaaqeenna iyo xaaladeenna qiimayno innagoon isyeelyeelayn. camalkii ma la aqbalay mise lama aqbalin? calaamaduu leeyahy. 5 arrimood baa ka mid ah. calaamadaha waxaa ka mid ah alxasanatu bacda alxasana, inaad isarkayso adigoo xasanaadkii sii wada. tan sameeye tu kale ku xigsiinaya, tu kale ku xigsiinaya. waxaa ka mid ah inshiraaxu suduuri lilcibaada, inaad macaan ku hayso cibaadadii ay ku dhadhamayso oonad ka caajisin. waad cudursantahay haddaad ka caajisto. calaamadaha waxaa ka mid ah altawbatu min adunuub, inaad dembiga ka diirayso ood ka damqanayso oo deg deg uga toobad keenayso oo dembigu ku damqayo. calaamadaha waxaa ka mid ah alkhawfu min cadami alqabuul, inaad ka cabsanayso inaan ilaahay ka aqbalin. waladiina yuutuuna maa aatow wa quluubuhum wajilatun annahum ilaa rabbihim raajicuun. ilaahay wuxuu ku sifeeyey dadka muuminiinta ah waxay la yimaadaan cibaadada iyo camalka iyagoo ka cabsi qaba inaan laga aqbalin. waxaa ka mid ah alkhayratu liddiini ida ntuhikat xurumaat ullahi tacaala, inaynu yeelanno dareen diineed oo marka diinta ilaahay meel lagaga dhacayo aynu diirno oo aynu damqanno, aynu xumaanta diidno. astaamaha haddaad iska weydo waxbaa jira. camalkii inaan la aqbalin bay u dhowdi. waxa markaa aynu intaasii raacin lahayn arrin aada u muhiim oo ah mudaawamatu lcamal, almudaawama cala alacmaal, camallada in la daa'imo la joogteeyo. 4 qodob baynu wax ka odhanaynaa. taa waxaynu kaga daynaynaa nebiga
iyo siduu nabigu u dhiiriyay iyo faa'iidooyinka laga helo iyo waxyaabaha inaga caawin kara inaynu camalka joogtayno ugu horeyn rasuulku sallallahu alayhi wasallam qowlkiisa iyo ficilkiisaba waxa ummadda uu ku abaabulay oo uu jeclaysiinayay waxay qabanayaan inay joogteeyaan tirada camalka laguma xisaabtamo xataa shaqooyinka adduunyada waxa lagu xisaabtamaa tayadiisa qofku wuxuu qabtay noocu ahaa tayada camalka waxyaabaha qurxiye wanaajiyo diin iyo dunyaba waxa ka mid ah in la daa'imo oo la daynin qofku hadduu shaqo badan qabto laakiin uu googoys yahay laguma talagalo intiisa yare uu qabanayo hadduu sugayo joogtaynayo waa lagu xisaabtamaa shaqooyinka adduunyada diintuna waa saas oo kale rasuulku sallallahu alayhi wasallam dhaqankiisu waxa ahaa idaa camila camalan athbata xadiidka muslim ku sugan min xadiid Aisha markuu nabigu shaqo qabto cibaada uu sugi jiray kama tagi jiray wa ficilkiisi qowlkiisina wuxuu inna allaha yuhibbu ahadakum idha amila amalan an yutqinahu aw ahabbu al-a'mali ila allahi adwamuha wa in qal xadiidka Bukhari nabigu wuxuu leeyahay alayhi salatu wassalam qofku amalkiisa ilaahay ugu jecel yahay waa ka joogtada ah haba yaraado camalkaagu yuu badnaanin laakiin camalku waa inuu noqdaa mid lagu xisaabtami karo ku tirsan sidaas oo kale asxaabtuna ahaayeen Abu Bakar baynu tusaale u soo qaadan karayna wuxuu nabiguna ku hambaliyeynay Abu Bakarna tusaale uga dhigay asxaabta kalena ugu dhiiri gelinay camalkiisa joogtada Abu Bakar qaalin maalmaha kamida rasuulku sallallahu alayhi wasallam iyada saxaabadu la joogaan ayuu waraystay wuxuu weydiinayaa bal xiriirkooda ay ilaahay la leeyeen ka ummadda la leeyeen noocu yahay miyuu go'aamiyay waa joogto marka wuxuu yiri kiineeba waagu u bariyay isagoo soomsuna Abu Bakar farta taago ila aniga istusnima maaha laakiin waa imtixaan ilaahay daraadii loo galay si tartan jannada loo galo markaasuu haddana yidhi kiineeba waagu markuu bariyay jinaasad raacay Abu Bakar wuxuu aniga kiineeba waagu markuu bariyay qof buu ka soo booqday Abu Bakar wuxuu aniga kiineeba qof miskiina quudiyay intuu waagu bariyay kadib oo aniga buu afarta arrimood qofkay ku kulmaan buu nabigu jannadu galaa Abu Bakar Allah ka raali noqdo sidaasuu ku yahay dadka jannada galay marka tartankan waa midaynu ku wada jirno Abu Bakar kaligii ku goon yahayn ummadii asxaabta nabi maxamed ku abaabulayo sallallahu alayhi wasallam sidaas oo kale asxaabtiisana waa ku hambaliyeynayay ku arka camal joogta ah inuu sameeyo rasuulku sallallahu alayhi wasallam Bilaal buu maalmaha kamida la hadlay wuxuu Bilaal oo markaan jannada galay habeenkii la dheelmiyay sanqadhaada waxaan ka maqlay hortayda maxaad samaysaa camal ah wuxuu markastoo weysaysto laba ragcadood baan tukadaay oo la yiraahdo labada ragcadood ee weysada oo joogta marka waa kii Abu Bakar tamaniyay guul daradayda may Abu Bakar hooyadii iyo aabihii anigay dhalaan may Bilaal hooyadii iyo aabihii anigay dhalaan aniguna aan Bilaal noqdo ila nabiga hanbaliyay sallallahu alayhi wasallam asxaabtana sidaas uu abaabulayo Abdullah ibn Umar baa wuxuu waxaan arkay iyadoo asxaabtu marar badan intay riyooyin arkaan sidan uu nabigu riyada ugu bushaareynay saxaabada bushaareyntu jeclaa nabigu inuu dadka u bushaareeyo moralkooda iyo dareenkooda iyo sacaadadooda kor u qaado abu jeclaa rasuulku sallallahu alayhi wasallam marka waxaan arkay buu nabigu maraam iyo riyooyin asxaabta u cabiraya waxaan jeclaystay buu aniga laftigaygu inaan riyo arki lahaa riyo dheer buu marka arkay oo malaa'iktu intay qabteen naarta ay geeyeen oo laga sii daayo xafsuu sheegay bal hada rasuulka u sheegay awilay marka nabigu waxa uu ku soo ururiyay nicmo rajul Abdullah law kana yusalli min al-layl Abdullah uu fiican yahay haduu tukan lahaa habeenkii naafico shaqaalihiisi ama ninku xoreeyay wuxuu leeyahay intuu nabiga maqaalada ka maqlay kadib Abdullah ibn Umar wax yar buu seexan jiray kol hadii saalixnimadaydiba intaas shaabada u dambeysay lagu dhufanaya ay tahay waaban wadi joogtu ka dhigay marka cibaadadii habeenkii Bukhari waxa ku sugan rasuulku sallallahu alayhi wasallam iyadoo oo la hadlay asxaabi kamida asxaabtii daada yaray cibaadada badnaa qiirada iyo jibada iyo jacaylka diinta u qabay Abdullah ibn Amr ibn al-Aas
والله هذا وحري يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فتركه وهالقبس يسقى وكسها القبس ذي النبي لكن لما أنت توجيها نية المات ونسينا هبل وكلها لمد نقنن وعبادة سنشري هذين كيو وإسكداي وإنه النبي وإن لا يهون هبل هلمد نقنن ده هدا نقط أدا هيدين كور رمضان عبادة سنشري هكتجينا انت صوت دليله وحي شيء يا عبادة نية أسيد النبي يقول لي رجليي صلى الله عليه وسلم صحابة أنا أقولهم بلي قلب كلا بعده حوي فائدوينك كوتشرا عمل كان هدينو شوكتينو عبادة أين إلهي نعبد أين السنة فر البلد هدينو شوكتين فائدوينك كوتشرا نوعية أين رمضان تكسو عمرين وحكم ذا اتصال القلب بخالق إلهي بقلب والله حريريا مر هداد إلهي عابد يسوح كوكب بدن حسوس تيس من أحب شيئا أكثر من ذكري ولا قفك هاتو شيء شعلا هذا شيك يسوبديا قال هداد إلهي عبادة يسنى يسود حس يسوى تعش قلبي قاقي ربي بو كحرمه ما لك لها كحرم لها وحوي النوي والسبب لمحبة الله تعالى عمل كاين نشوكتينه ودائم نقضه ربي باي نقول شعلانا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ذاتك قلبك مايرا شرك مايرا الظهارة البضن الله وان جعلها سبحانه وتعالى جعلك إلهينا ووحين ربنا ينور هورين وسبب النجاة إنه إلهي إن بدبادي الدنيا ذي آخرة يا غلام احفظ الله يحفظك النبي يقول لا لأن اليراب الله ابن عباس إلهي إلهي هكو إلهي عبادة ذي سإلهي وسبب يبعد عن الفواحش فالحماضة يقول لماذا يقول لماذا هذا وحياة إنك فوقينا يا وحكا من الشقدين يعمل كان ونشوكتيه إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر قف عبادة سنة يا عيب تسكدين والسبب لمحو الذنوب تنبقى إن قرهرا إلهي وحي نقر يا عملك يا عبادة وكتسالين السير رسول كان صلى الله عليه وسلم بل كور رمى قفك وبيقل قليا الباب كيسا ومريا وما رنتي شن شارك قبي سنة وسخدي سمية وحكوها ريا ما يبين لي صحابة رضوان الله عليهم حديث كي صحيحين ده أساسه كلو كان جاي قفك صلاة تكن يا النبي صلى الله عليه وسلم وسبب لحسن الختام قرأنا لمن الله أعلم كيد بين سكن هاي تبكوشوجا بالا للنومة هي بهاش النفط آدر قبل نقول سورنت هاي وكاسي بنكرتا جدي جدوبا هل كشارع عصات كل عكرتا سببها إلى هاي حسن الخاتمة كوسينا يكمتها عمل كاغون الصعدة أو شوكتية يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ضدك إيمانك يا عمل كصالح حاله إلى هاي قول كان قصة يا أبو الدنيا آخرة وحكى النبي صلى الله عليه وسلم قف كمركو إلى هاي خير للدونا استعمله هول قلياه أصحابته هداي إلى هذا بالنافسر نوحوري عمل وناكسن بوافقيا ومركاسو يسقى عمل كاو وناكسن وضع أي نفتك كقالا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وحينوسي قد بلهين قضبك قدام بياء ما هي الوسائل المعينة على مداومة هذه الأعمال المتنوعة عبادوين كان كلا الدوانين ينسي وضنه محاي نقع عاوين كرا تب يحيرت يدعى يحرفض يحيالات مركين اسكو ودا درنو waxaynu ilaahay ka codsanayniyo wuxuu sabab inooga dhigayba maxay naga caawin karaa waa muhiim hadii lagu raado shaqadaas aad qabanaysaa waxyaabahaas ana ka saacido dadku markiiba record garaystaan oo aad bay ugu dadaalaan kala day waxaas noqonaya wixii amalkayga qurxinaya dee waa laga maarmaan in ku dadaalo wasaa'ilka waxa kamid ah kowka waa tobaneeyo al-azimatu as-sadiqa inuu dee qofku go'aan u leeyahay haddaad culimadu ku warwareegtaa tiraa ii ducee waxaad doonaysana aad samayso dee sax maaha waa lagu ducayn laakiin dadaalkii mee caziima go'aan waa inuu jiraa qofka bani aadamkii go'aanka kama soo haro nebigu ku ducaysan jiray sala allahu calayhi wasalam حديث صحيح النسائي كسوغان با وحو الله رسولك وحو ران جيرو دعوينكيسا كميدها اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد إلهي وحن كويديسانا يا إنا دينتا كسوغمو وآن كان وحا وناكسنا أن كوغو أن قاتو وحا كميدا الاقتصاد في العبادة عبادة إنا أحد حيثته أكلفوا من الأعمال ما تطيقون بالله رسولك صلى الله عليه وسلم
حديث بخاري عملك نفتينا كلفة أو قاتين تكريسان ومعروف قفك بني آدم كي وحانو كرين هدي ودوش يسكسر وكفاه كدب نون نعا وكعرة مركا يرو كو معانو كريسا كوميتي تلمان تاسوي نسي النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه دين تاني way fudud daybuud dadka isku adkeeyana way la kufaan oo ma kici karaan way ka xoog badataa xarig buu arkay rasuulku sallallahu alayhi wasallam halka ku xiran saajka dhaxdiisa laba tiir kaasuu xarigan muxuu ahaa kaasalay Zaynab bint Jahsh oo xaaskaaga habeenkii cibaadaysatay markay daasho ayay cuskataay ku kacdaa halka waran inaguna islaamiyeen waxaynu kari laanay salaada subax iyo fadhiga faralka bal hada heblaaye u kac adigii ciyaalku iyaduna faral iska daayo habeenkii bay ku loodinaysa xarigaas ay cuskanaysa wa tabarku siiyay nabiga kaleey salaatu wasalaam bay ka dheereeyay markaa wuxuu yiri maya iska fura xarigano midkiin intuu kari karay ilaahay caabud marka waa laga maarmaan shaqo adduunyo iyo shaqo aakhiraba istiraatiijiyad muhiim ah weeye wax lagu hirgeliyo qofku muxuu kari karayaa muxuu joogtayn karayaa si aan u fashilmin waxa kamid ah qiraa'atul quraanka in la akhriyo quraanku marka aad akhriyayso ilaahay baad la nooshay subhanahu wa ta'ala ilaahay baad wehelinaysaa ilaahay baad ka agdhowda waanfiquu mimma razaqnaakum min qabli an yaatiya ahadakumul mawt aayaadka saad akhriyaysa ku sheegaya jaaniska inaad ka faa'iideysto oo dhiiranaysa waxa kamid ah al-ikthaaru min tadhakkuril mawt geerida inaynu aad u xusuusanna haddaad aakhiro iyo geerida xusuusan tahay dee sahaydeedii baad wadaysa haddaad iska ilowdo oo saacadahaagu u wada buuxsan yihiin in la dhoofo oo la shaqeeyo adduunyo la xisaabiyo loo ordo oo dadka adduunyada lala tartamana tanasiibata dii aakhiro waad ilowdi akhiru dhikra haadim alladaat sidaa daraadeed buu rasuulku sallallahu alayhi wasallam in leeyahay xusuusta aakhiro geerida bariya geedida xusuusteed waxaa kamid ah suhbatul akhyaar alladina تذكرك رؤيتهم بالله تعالى وباليوم الآخرة ضدك وناكسن هذا صاحب أركتدو إلهي كحسوسنا يا آخره قفنا مركا أدركتو خير بعد حسوسنا يست الله جاب إن النبي يكسل له والله جاب إن استلاح هذا إن وعد يكرجس والله جاب إن الشركة كجابس واستلاح بركتس هذا وشوجا بالحمان تها سمين قفنا مركا أدركتها ترتن كجلايا مد سياسة هي مد كرسي هي مال هي مد فعلتن هي marka dadka wanaagsan aad ka agdhawaataa wax weyn weey fatashabbahu in lam takunu minhum inna tashabbuha bil kiram falah dadka wanaagsan isu egeysiya buu leeyahay shaacirkaasi hadaydan kamid ahayn in iyaga la isu egeysiya dadka wanaagsan baaba guula waxa kamid ah ad-du'a itaaliya awoodaynu leenahay arrinkeena bidimayna ilaahay baynu bariyayna bariyada ilaahay ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ومن أنت وحي كنت عايسنا يعني لا إله وقلبي جاي أنت هانون يسهل لحن رمضان بين كهانون وخير كان كهانون إله اللحن بين كنت عايسنا إذا سنة يا شاء الله بديو يا ذكر إله إلا بديو يا وقدام بينتي الابتعاد عن الذنوب والمعاصي إن ذنبك كدرنا مركز طاد dembiga ka durugta daacada u dhawaat hadaa dembiga ku durugtana daacadii baad ka sii durkaysa waa laba isu cagsiya hadaa dembiga ka durugta malaa'igtaadu dhawaanaysa iyo tartankooda hadii aad daacada ka durugta dembiga ku durugtana shaytaankii ehelkiisa aad u sii dhawaanaysa tobanayada shay waa al-asbaab al-mu'ina ala al-mudawama wasaabaha inaga caawin kara amalkan waynu dheeraynay waxaynu ku soo ururinaynaa dariiqu waa dheer yahay sahayduna way yar tahay safarkiina waa socdaa halkana halkii la degayay maaha goobta la degayaa way dambaysaa diyaar garowgu inaga kala goyn allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين اللهم إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصر الإسلام والمستضعفين والمرضى في كل مكان يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة